muddo kordhintan inoo markhaati furi mayso, inoomana abiyamayso, inoomana gudbinayso, inoomana intay samaynayso dariiqaynu adduunyada u marno. annaka xusbiga kulmiye waxaanu taaganahay mowqifka yagii hore. madaxweynaha qaranka waxaan xusbiga kulmiye waxaan usoo jeedinayaa inay lagama maarmaan tahay shicibkuna iminka uu ka sigayo mowqifka uu isagu ka qaadanayo marxaladan cusub oo taas xusbiga khilaafku ka jiro ee laga haayiray gudaha iyo dabaddaba waa xusbiga ka ah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta waxaan halkan ku sii daynayaa qaraarka xusbiga kulmiye ee ku wajahan muddo kordhintan arrinta doorashada jamhuuriyadda Somaliland. sida aynu ka wada warqabno, komishanka doorashooyinku wuxuu hore u soo saaray jadwal ama dariiq kooban oo ay ku soo cadaynayeen muddada doorashada hadda la rabay in ay qabsoonto inay u baahan yihiin muddo 10 bilood. muddadaasoo ku kala qeexan maraaxilada kala duwan ee arrinta doorashooyinka labada gole deegaanka iyo maxaanku dhahdaye iyo baarlamaanka. arrintaas xusbiyada waa loo soo bandhigay, kulan madaxweynuhu qabtay baa lagu soo bandhigay. madaxweynuhuna arrintaa wuxuu usoo gudbiyey golaha guurtiga oo dastuurka qaranka Somaliland uu fasaxayo ama uu igmanayo inay haddii xaaladaha noocaas oo kale ay yimaadaan ay muddo kordhinta sameeyaan. muddo imika laga joogo dhowr casho, guddi golaha guurtigu ay u soo igmadeen ama ay u xil saareen tala bixin inay ururiyaan dadka maxaanku dhahdaye daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka iyo dadka maxaanku dhahdaye ku taxalluqa arrimahaasba inay ra'yi bixintooda ay arkaan ayaa maxaanku dhahdaye uu la kulmay xusbiga kulmiye. xusbiga kulmiye wuxuu ka jeediyey ra'yigiisa. guddida markaanu la kulannay annagoo maxaanku dhahdaye koox weyn oo aada u ballaadhan oo hoggaanka xusbiga guddiga fulinta intaba ka kooban iyo xubno kale oo muhiima. xusbiga kulmiye tala bixinta uu ka jeediyey waxa weeye waa kow marka ugu horeysa dastuurka qaranka Somaliland cid kasta iyo hay-ad kaste waxa uu cadeeyey ama uu jideeyey hawsha qaranka uu igmaday. xusbiga kulmiye qoraal ahaanna waxaanu ku sii daynay inta aan haddeerta idiin sheegay. annagoo kulmiye ahaanana aanu taa tixraacayno waxaanu guddida u soo jeedinay mar haddii komishanka doorashooyinku uu dastuuriyan u igman yahay in ay qaranka doorashooyinkeeda maamulaan, sidaasna uu dhigayo xeer number 91 xeerka 19 oo ka dhigmay dastuurka qaranka. muddada ay u baahan yihiinna ay si cayiman u soo qoreen oo u soo tafatireen in golaha guurtiguna uu baahan yahay muddada ay soo codsadeen in iyaga loo ogolaado maadaama iyagu sharciyan arrintaa ay leeyihiin. hase ahaatee shalayto golaha guurtiga qaranka Somaliland wuxuu ku gebagabeeyey xaaladaas in la kordhiyo muddadii golayaasha doorashada golayaasha muddo 27 bilood ah oo aada iyo aada uga fog muddadii 10 bilood ahayd ee ay soo codsadeen komishanka doorashooyinku. layskuma hayo, murano kuma jiro golaha guurtigu inuu isagu yahay qodobka 83 ee dastuurka qaranka u igmaday in haddii doorashooyinku ay qabsoomi waayaan madaxweyne, gole baarlamaan, gole deegaan iyo iyaga guurtiga toodaba inay maxaanku dhahday kordhinta iyagu leeyihiin. su-aasha taaganaysa hadda waxa weeye yaa kordhinta soo codsaday? ma xusbiyadaa soo codsaday qaranka? ma xukuumadda madaxweynuhu madaxda ka yahay fulintaa codsatay? ma cid kalaa guurtiga u timiyo ka codsatay? annagu kamaanaan codsanay, waxaanu ogolaanay
tobanka bilood ee horeanu xusbiyada ogolaana oo uu ka mid yahay xusbul xaakimka qaranku oo uu ka mid yahay madaxweynaha fulinta madaxda ka ahe tobankaasaanu ogolaana haddii tobankaas la ogolaaday oo daneeyayaashii aanu ahayn hase ahaatee cidda soo codsatana ay ahayd hay-addii ku shaqo lahayd xaalad kasta iyo waaqici kasta iyo talo kasta iyo arrin kastaaba waxayna odhanaysaa in loo daayo qoladaasi intii ay soo codsadeen qarankana dantiisu ay taasi ku jirtay hase ahaatee maadaama muddadaasi ay ka korodhay oo golaha isaga ay la habboonaatay inay maxaanku dhahday 7 bilood ay ka dhigaan annaka xusbiga kulmiye waxaanu taaganahay mowqifka iyagii hore hase ahaatee su-aasha taaganay waxa weeye maanta xaaladda aynu ku jirno marka laga eego xagga siyaasadda iyo marka laga eego xagga maxaanku dhahdayay deganaanshaheena iyo marka laga eego maxaanku dhahdayay haddaynu somaliland nahay waxa qura iyo baahida qura ee aynu qabnaa waxa weeye in adduunyadu ina aqoonsato dariiqa qura ee aynu maraynay ee laynagu majeertay waxay ahayn hanaanka dimuqraadiyadda xusbiyada badan ee dalka ka taliya hanaankaas dimuqraadiyaddana halka uu ku dhammaado waxa uu ahaa waa doorashooyinka ayaynu u maraynay doorashooyinkana adduunyada sida ay u dhintay waa laynagu wada majeertay sida maxaanku dhahday doorashooyinka aynu qabsano nabadgelyada aynu qabsano natiijooyinka sidaynu wada ogolaano xil isku wareejinta hadday madaxweyne tahay hadday baarlamaan tahay hadday local government tahayna aynu isku wareejino maxaanku dhahdayna taana waa laynagu ammaanay tani inoo markhaati furi mayso inoomana abiyamayso inoomana gudbinayso inoomana intay samaynayso dariiqaynu adduunyada u marno sidaa la ajligeed waxaan leenahay waxay meel kaga dhacaysaa ama waxay aada usii fogeynaysaa xanaankeenii dimuqraadiyadda aynu aada iyo aadka ugu naalooneynay inta hadhay markaa waxay noqonaysaa doorashada mas-uuliyaddeeda inay qabsanto hadday tahay xagga dhaqaalaha iyo xagga nabadgelyada iyo xagga siyaasadda intaba waa madaxweynaha qaranka ayaa mas-uuliyaddiisu saaran tahay madaxweynaha qaranka waxaan xusbiga kulmiye waxaan usoo jeedinayaa inay lagama maarmaan tahay shicibkuna iminka uu ka sigayo mowqifka uu isagu ka qaadanayo marxaladan cusub oo taasi ay markhaati ka noqonayso inuu mowqifkiisii hore ummadda u sheegay weli uu ku nag yahay ee ahaa doorashadu hadday tayda tahay iyo hadday doorashooyinka kale tahayba maalin ku darsami mayso madaxweynaha jawaabtaa maxaanku dhahday laga sugaya arrintan waxaa daneeyayaal ka ah xusbiyada qaranka xusbiyada qaranku mowqifkan iskaga mid maanaan noqonin annagu haddaanu xusbiga kulmiye nahay labada xusbiye kaleba mowqif ka duwan baanu qabnay sababtaanu kaga duwannahay waxaa weeye xusbiyada mudday arrintani dhexdeeda soo socotay ilaa iyo dhowr shir ayaanu madaxweynaha kala galay saddexda xusbi qaran iyo madaxweynuhu ay arrintan ka wada galeen dhowr shir ayaanu saddexda xusbi oo gaarihi ayaanu ka wada gallay dhowr shir ayaanu labada xusbi ee mucaaridka aanu ka wada gallay mowqifyo kala duwan waanu taaganayn hase ahaatee sidii aanu usoo kala ururinay qaarkayana waanu isla ogolanay qaarkayana waanu isla ogolaan weynay 3 mowqif baa la kala taagnaa saddexdayadii mowqif waxay ku kala duwanaayeen muddada diiwaangelintu ay ku qabsoomayso iyo kharashka diiwaangelintu ku qabsoomayso mowqifka koobaad wuxuu ahaa 7 milyan ka labaad wuxuu ahaa 9 milyan ka kale wuxuu ahaa 11 milyan 14 milyan meelahaasuu ahaa saddexda xusbi saddexdaa mowqif baanu kala taagnayn hase ahaatee markaanu dhowr shirnay oo kala fogaanay xusbiga kulmiye annakaa ra'yi soo jeedinay odhanaya mar haddaynu daneeyayaashii nahay kala qaybsanaantani inagama meel maraysa aan meel isugu nimaadno waxaanu soo jeedinay mowqifka dhexda ah ee labaad ee 9 milyan inaanu isugu nimaadno xusbiga wadani wuu naga ogolaaday oo markii hore taagnaa mowqifka marxaladda koobaad ee 7 milyana xusbiga wadani si fiican oo hagar la-aana buu nooga aqbalay xusbiga ka ah ilaa iyo maalintii aanu wada hadallada bilownay ilaa iyo maanta isagoo ku marmarsoonayo diiwaangelinta waxa uu taagan yahay mowqifkiisii ugu horreeyey taasna annagu waxaanu aragnaa in uun doorashada uu sii fogeynayay shalayta haddii ay arrintani dhacdayna
isagu kala hadlay xubnihii xisbiga ee hadlay ee madaxdiisa ahaa way kala hadleen haddii ay kala hadleenna gudoomiye maxamuud xaashi in yar baa annaka noo soo jeediyay oo nagu yara dhuftay intaasi waxay ahayd in annaka xisbiga kulmiye mowqifka iyaga isbedbedelayay ay ka sababtay muddo kordhinta arrinta doorashada taasna ay sabab u ahayd iyadoo xisbiga kulmiye uu kala maqan yahay maxaan ku dhahay dhexdiisa khilaaf ka jiray xisbiga kulmiye intii imika doorashada aanu haynay hawsheeda iyo intii xilkii hore ee dowladnimada uu wareejiyay marna mowqifkiisu isma bedelin sababtaanu annaku uga odayeynayna waxay ahayd de xisbi annaku soo gaamuray oo maanta xisbiyada ugu daaweyna waanu ahayn xisbi 14 sanadood xukuumadda dalka hayayna waanu ahayn xisbi laga madaxweyne laga doortayna waanu ahayn odaytinimo aanay inta kala lahayn ayaa annaka nasaaran inaanu ka odayayno xaalad kasta oo masiiri ah oo jiritaanka Somaliland lafdhabar u ana waanu leenahayo kaanu marnayna kaasoo ahaa xisbigaygu maxamuudow maantana ma kala socdo shalayna ma kala soconin maantana khilaaf kama jiro shalayna khilaaf kama jirin xisbiga khilaafku ka jiro ee laga haayiray gudaha iyo dabadaba waa xisbiga ka haddaad wax ku tarayso wax ku tar salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh